dalkii nabad nabad nooga yeel bifiyo abaar baa jirtay dalkii nabad nabad nooga yeel laylay 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 lalalay moone cawalay ku dheeraaye laylay 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 lalalay moone cawalay ku dheeraaye nabad nabad epo epo nabad nabad epo epo nabad nabad epo epo garadka iyo guurtida gaaray deegaanka Cawsane ayaa la wareegay dhammaan goobihii lagu dagaalamay deegaanada ay isku horfadhiyeen maleeshiya beeleedka labada dhinac ayaa lagu wareejiyay guurtida iyo waxgaradka soo gaaray deegaanka Cawsane waxaana deegaanada gacanta guurtida lagu wareejiyay kamida deegaanka Laasbaxay iyo deegaanka Ceel la helay oo ay kala fadhiyeen labada maleeshiya beeleed guurtida iyo waxgaradka soo gaaray deegaanka Cawsane ayaa goobihii lagu wareejiyay waxa ay gacanta u galiyeen dawladda Puntland gaar ahaan ciidamada difaaca dawladda Puntland ee Beder si Laasbaxay oo la isku hayay oo shaqaaqadu ka dhacday waxa noo yimi oqaashi isimadii guurtidii harsi baa noo timi waxaanu isla garanay inaanu ku wareejino meeshii la isku hayay oo ahayd Laasbaxay oo dhimashadu ka dhacday oo shaqaaqadu ka timi waxaanu ku wareejinay inaanu ku wareejino naga codsaday iyo beesha hartiin baan ku wareejinay anagu oo noo waxaan halkan ka cadaynaynaa annaga oo joogna Ceel la helay maantana ay tahay bishii 30 bishii 7 lixaad ay tahay 30 in aanu mas'uuliyadii Ceel la helay qadiyadii ka taagnay Laasbaxay qadiyadii ka taagnayd mas'uuliyaddeena ku wareejinay ciidankii ka oolaa beeshan aan nahay meesha ka joogayna aan qaadanay amnigiina idinka soo ku wareejinay ilaahayna haydin fududeeyo khayr baan idin rajaynayo billaah waxaan cadaynaynaa inaan idinku wareejinay mas'uuliyadda idinka sugayno amnigii aan dhinac kasta ha ahaato maanta aan idinku wareejinay kalsooni aan idinku wareejinay aan rabno waxaan la wareegnay oo kala wareegnay beesha Dubays waxaan kala wareegnay beertii la isku hayay oo meesha muddo shaqaaqadu ka dhacday waxaanu maanta annaguna ku wareejinaynaa ciidanka ayaanu maanta ku soo wareejinaynaa mas'uuliyadda annaga kala wareegnay ammaan ahaana waxaan u dejinay ciidanka Puntland oo jooga goobta tan joogay oo awal ku dhex jiray meesha ku dhex jiray baan u dhiibnay intaan hawsha ku dhex jirno iyaga si joogi doona waxaan annaha halkan anoo magaca isimada ku hadlaaya harti waxaan sheegayaa in beeshii nagu soo wareejisay aan uga mahadnaqnay annaguna aanu hadda amnigeeda ku sii wareejinay ciidamada amniga ee Puntland oo goobtan ku sugan ilaa inta hawshaas la dhamaynayona oo erga ahaan loo galayo iyo gudiye loo samaynayo oo hawsha la kala saarayona ciidamada amniga ayaa mas'uuliyaddeeda gacanta ku sii haynaya hadii rabbiga idmo gudoomiyaha degmada Carmo Nabadoon Maxamed Ibrahim Xaaji Faarax wasiir dawladda wasaaradda dekedaha iyo la dagaalanka barcadbadeeda dawladda Puntland Caaqil Yuusuf Maxamed Wacays Dedo ayaa ku wareejiyay ciidamada dawladda deegaanada Ceel la helay iyo Laasbaxay oo ay isku horfadhiyeen maleeshiya beeleedka labada dhinac